shaaruqan filim jilaaga loogu jecel yahay caalamka oo cibaadada cimrada gudanaya toobada allena u tegay masaajidka xaramka barakaysan ee Maka ayaa laga hadalhayaa dunidoo dhan balse muslimnimadiisa waxa boogtii daawuska ku noqotay xaaskiisa oo aaminsan diinta Hinduuga inuusan muslim khaalis ahayn ayaa marar badan lagu murmay balse qirashadiisii inuu islaam yahay iyo cumrada xaramka ayuu ku cadeeyay inuu ku dhaqmo diinta islaamka oo yaraantiisii ay ku soo barbaariyeen labadiisa waalid oo ka soo jeeda dalka Afghanistan boqorka Bollywoodka ama kan loo tixgeliyo aabaha jacaylka waa ninka tarishooyin dhowra jacaylkay u qabaan iilkiyo qabriga loo dhigay dhaaxay gabdho badan ilmadu dhabanada u rushaysay xubbigay u hayaan aktarkan awgeed balse kama hadlayno qisooyinka jacayl ee loo qoofalay aflaamtiisa laba qarxay biladaha uu ku guuleystay ama hantidiisa malyuumaad ka gaartay ee waxaan dul istaagi doonaa diinta uu haysto iyo xaqiiqooyin ku gadaama noloshiisa fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahasani shaaruqan filim jilaaga loogu jecel yahay caalamka oo cibaadada cimrada gudanaya toobada allena u tegay masaajidka xaramka barakaysan ee Maka ayaa laga hadalhayaa dunidoo dhan balse muslimnimadiisa waxa boogtii daawuska ku noqotay xaaskiisa oo aaminsan diinta Hinduuga inuusan muslim khaalis ahayn ayaa marar badan lagu murmay balse qirashadiisii inuu islaam yahay iyo cumrada xaramka ayuu ku cadeeyay inuu ku dhaqmo diinta islaamka oo yaraantiisii ay ku soo barbaariyeen labadiisa waalid oo ka soo jeeda dalka Afghanistan boqorka Bollywoodka ama kan loo tixgeliyo aabaha jacaylka waa ninka tarishooyin dhowra jacaylkay u qabaan iilkiyo qabriga loo dhigay dhaaxay gabdho badan ilmadu dhabanada u rushaysay xubbigay u hayaan aktarkan awgeed balse kama hadlayno qisooyinka jacayl ee loo qoofalay aflaamtiisa laba qarxay biladaha uu ku guuleystay ama hantidiisa malyuumaad ka gaartay ee waxaan dul istaagi doonaa diinta uu haysto iyo xaqiiqooyin ku gadaama noloshiisa fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahadsanid superstarka shaaruqan waa filim jilaa Hindiya oo xaqiijiyay himilooyinkiisii heerka ugu sarreeyana ka tiigsaday shirkadda filimada ee Bollywood asal ahaan wuxuu ku abtirsadaa dalka Afghanistan hooyadii waa Latiif Faduma Khan aabihiina waxa lagu magacaabi jiray Taaj Maxamed Khan waxay ahaayeen qoys muslimiin ah oo ku dhisan sharciga islaamka waana halka uu shaaruqan ka hidaystay diinta islaamka sanooyin badan waxa la suuq geeyay aktarka reer Hindiya inuusan muslim ahayn wuxuuse waraysi uu bixiyay sanadii 2006 ku sheegay inuu ku dhegan yahay kuna dhimanayo diinta islaamka haddana inuusan muslim khaalis ahayn ayaa lagu eedeeyay bacdama uu guursaday xaaskiisa Gauri Khan oo haysata diinta Hinduuga boqorada uu haween ka calmaday qudheeda ayaa qirtay in saygeedu uu jecel yahay ku dhaqanka diinta islaamka kolkii ay waraysigeeda ku sheegtay inuu dhowr jeer ka diiday inuu u raaco mandarka kalena qayb galo ciidaha loogu dabaaldegayo diinta Hinduuga bacdama islaamku aanu ogolayn ka qaybgalka ciidaha khuraafaadka wiilkooda curadii Arya Khan ayaa qaaday dhabada aabihii wuxuuna xajistay caqiidada xaqa ah ee islaamka shaaruqan ayaa dhowaan booqday dalka Sacuudi Carabiya balse waxa dad badan ku baraarugeen isagoo gudanaya acmaasha cumrada iyo cibaadada oo muslimiintu ay alle dambi dhaaf ku weydiistaan masaajidka xaramka barakaysan filim jilaaga SRK wuxuu sheegay inuu xaramka u tegay si uu alle ugu dhowaado isagoo xiran dharka ihraamka sunnaduna ay ka muuqato ayaa sawiradiisa si weyn loogu baahiyay warbaahinta bulshada iyo TV-yada dunida ugu afka dheer caalimka muslimka ee Dr. Zakir Naik oo horay ula kulmay filim jilaaga shaaruqan ayaa sheegay in aktarka reer Hindiya uu doonayo inuu barto duruus ku saabsan fiqiga iyo axaadiista laga wariyay rasuulka sallallahu calayhi wasallam Sheikh Zakir Naik oo warbaahinta uga warramay wixii ay ka wada hadleen 30 daqiiqo oo ay wada fadhiyeen SRK wuxuu shaaca ka qaaday inuu su'aalo ka weydiiyay labiska muslimiinta sida khamiisyada
koofiyadaha ama garkoo lala baxo ama la dheereeyo haddii ay jiraan ajar iyo xasanaad ka soo kordhaya, kuwaasoo caalimku tilmaamay inuu ka jaahil bixiyey xilli uu u naseexeeyey, waaniyey kana codsaday inuu joojiyo jiliinka aflaamta bacdamaa muusiga iyo heesuhu ay dembi yihiin